إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أبنائي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إلهي بمهله سبحانه وتعالى ما هذا الرب جنب أسكله مرلبات كان مجمع تعليمي نشاطات كيس iyo waxqabadkiisu dalka ka muuqdo in alla inta ka hawl gasha madax ilaamijo ama sayhiin walaalihi kelmadda sababta oo ahana mahad bay leeyihiin iyo kuwa lalinayaba ardayay mawduuceenu maanta waa mawduuc runtii muhiim ah waa mawduuc haddii aad garataan oo gunudaan oo si fiican qalbiga u gelisaan noloshiina wax badan ka bedelaya noloshiina meel dhow baa maraysaan intii bannayd way idin harsan tahay maanta waa munaasib in wakhtiga la idinkala hadlo nin aniga aynigayga ama iga sii weyn haddii wakhti lagala hadlo dee inta yara hadhuun baa la leeyahay ilaasho gundhiga u dambeeya laakiin idinkoo kale intii badnayd baa harsan ninba intii ilaahay da uga dhigo haddii wakhtiga loo sheego qiimuhu leeyahy isna uu dadaalo wax weyn baa ka soo baxaya marka mawduucaasi waa munaasib jiddan mawduuca wakhtigu runtii wuxuu leeyahay ahmiyad weyn in wakhtiga la isku baraarujiyo ka faa'iidaysigiisa la isku baraarujiyo dayacaaddiisa la isaga digo waayo wakhtigu khasaa'is buu leeyahy arrimo u gaaraa jira wakhtiga oo aan lala lahayn maxaa uga horreeya waxaa uga horreeya wakhtiga ilaahay unbaa bixiyaa alwaqt mucdiihu allahu caza wajal ka bixiyaa waa ilaahay khalqigu iminka hadday isu tagaan khalqigoo dhani dhaqaalahooda isu geeyaan awoodahay isu geeyaan maskaxdooda isu geeyaan ilbidhiqsi soo uguma yara wakhtiga ilbidhiqsi kuma siin karaan mid ka dhammaatana ilbidhiqsi uguma dari karaan wakhti tegeyna ma soo riixi karaan ma dhici kartaa taas waa maya sidaa awgeed ilaahunbaa bixiyaba waa kow markaa kol haddii alla bixiyo waa nicmada ugu weyn baa la odhan karaa ilaah siiye nicmada ugu weyn weeye maxaan u leenahay waa nicmada ugu weyn islaamnimadu wax ka weyn miyaa garanaysaa islaamnimada ardaydaan la hadlaya idigaan la hadlaya islaamnimada waxa lagu ashaataa waa waqti ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna maxamedan rasuulullah waa waqti iyadaad ku soo gashay cibaadada ku soo xigtay islaamnimadu waa maxay arday islaamka maxaa ku soo xiga salaadiina waqti baa lagu qabanaya waqti baa u baahantay sakadii baa ku xigtaa waqti baa u baahantay soomkii baa ku xiga waqti buu u baahan yahay xajkii baa ku xiga waqti buu u baahan yahay cibaadaadkii oo dhani waqti baa u baahan yahay wakhtigan alla lagu caabudaya waa kuu ilaahay raalli kaaga noqonayo waa kuu ilaahay kugu jannaynaayo waa kay malaa'igtu kuu qorayaan markaa khaasiyadda labaad waxa weeye wakhtigu waa kii alle loogu dhowaanayay khaasiyadda saddexaad waxa weeye wakhtigu ma soo laalaabto laa yatakarar walaa yacuud hal mar buu ku maraa iminka daqiiqaddii aan idiin soo gelayay haddaan garhka idin qabtoonaa ilahay baa idinku dhaariyey soo celiya
daqiiqadaydii dhalinyarooy khayr allah idin siiyo lacag baan idin siinayaa soo celiya soo celin kartaan laakiin ninkii naga baxay imika soo celiya waa soo celin kartaan soo ma ninkii imika baxayey ama soo jiidda ah ama soo qaada ah ama soo qancisa ah inuu inagu soo laabto si un baa ku keeni kartaan soo ma alaabay iga luntay haddaan idhaa doonana ama iyadii bayd ii soo heli ama tii way luntaye kan kalean kuu soo iibinaye soo ma odhan kartaan laakiin daqiiqaddii habeen xalay tegey ma soo laabanayso saddex qodob ma iga haysaan qodobka afraad waxa weeye alwaqtu yaxmilu maa xamaltahu waqtigu wuxuu qaadaa waa gaadiid wixii aad saartuu qaadaa waqtigii tegey khayr baad saartay uu la tegey aakhiruu kuu geynaya shar baad saartay uu la tegey ma kala hadho waqtigaad ka faa'iidaysay faa'iidadiisuu la tegey kii aad dayacdayna muxuu la tegey dayacaaddiis marka khaasiyaadka uu leeyahay ka mid tahay waqtigu imsaa iga haysaan afar khaasiyadda shanaad waxa weeye waqtigu waa ka dadka isdhaafiya alwaqtu huwa almuqadimu aw almu'akhir dadka isaga ama isqadima ama isdhaafiya haddaad maqasheen hebel hebel waa caalim muxuu caalim ku noqday waqtigiisii buu ka faa'iideeyey habeen iyo maalin isaga malaa dheeraad baa loogu daray ninka caalimka noqday 24 saacadood 3 baa loogu daray soo maaha 27 saacadood buu haystaa ya 24 buu haystaa wiigiis isaga 8 baa looga dhigay maalin 8 baa ugu jirtaa maya bilihii 13 baa looga dhigay miya 12 bilood muu haystaa ardayay khudbadda jimcaha la soo aamusaa khudbadda jimcaha waa la soo aamusaa tan la soo aamusi maayo waa inay la socotaan maxaan idin idhi ninka caalim noqday ma waqtaa loogu daray se intan buu haystaa haddaa siduu caalim ku noqday nimayo uu ka faa'iidey ka jaahilkaayna waa kaa jaahilka wax lagama jarin oo looguma darin isna uu dayacay kana uu ka faa'iidaystay waa intan doona waa intaa sidaa awgeed sheekh la yidhaahdo cali dantaawi oo aadii oo suuriyaan aha oo aad u ta'liif badnaa ayaa wuxuu odhan jiray anoo wakhtigii ugu yariyey oo waxaan akhriyayey waxaan qorayey waxaan ku dadaalayey ayaa waxaan soo maraa makhaayadaha dimashq oo turb la cayaaraya iyo dubnad oo la taagan yahay saan odhan jiray low kaana alwaqtu yubaac lashtaraytu min haaulaa wakhtiga haddii la iibin karaayo waan ka iibsan laha oraya saacadiga iibi adna 2 saacadood iga iibi adna maalin iga iibi waan ka iibsan lahaa buu idhi laakiin ceebta dhacday waa maxay waqti ma la iibsan karaa lama iibsan karo marka waqtigu haddaad maqasho nin baa wuxuu noqday maalqabeen halkii cilmigu maan horraysiiye maalqabeen buu noqday muxuu maalqabeen ku noqday maalmahanuu ka shaqaystay oo ku dadaalay waxbuu qabsaday nin baa beer tabcaday nin baa geel dhaqday waqti buu ka faa'iideeyey marka waqtigu waa kaas weeye waxaa inoo hadhay waqtigu yaryaraysi ma leh lama yaryaraysto qur-aan baa dhigataan iminka qur-aan baa laydin xareeyey nebigana waxaa ka sugan calayhi الsalaatu wasalaam inuu yidhi man qara'a xarfan min kalaami اllaah falahu biha xasana wاlxasanatu bicashri amhaaliha laa aqulu alif laa mim xarf walakin alifun xarfun walaamun xarfun wamiimun xarf nebigu wuxuu leeyahy calayhi الsalaatu wasalaam qofka xaraf akhriya kitaabka ilaahay ka mid a wuxuu leeyahay hal xasano halkiina waxaa loogu dhufanayaa maxaa 10 alif laam miim xaraf maaha buu nebigu yidhi laakiin waa 3 xaraf alif walaam wa miim soo min 10 may hayn 3 10 ku dhufo 30 alif laam miim 30 baad ku dhufatay bismi illaah bismi ya waa imisa waay 4 wey alifkii baa bismi allahna iyana waa 5 sagaalka bismi illaah waa 9 9 ku dhufo 9 arraxmaan ee ra'da mushadadka ay laabin al iyo ra'da iyo mushadada iyo xaadii iyo miimkii iyo nuunkii waa imsa
لح سمي نقول واي لحدان وجه لحدان بقول يكونتون الرحيم لح كلا كسوق هذا ضد طعمة تضوى إسكبدا مشدد كبير إسكدا لح كلا كسوق هذا وامسا لحدان كلا سوما هذا لا بقول يتوبن درجو يا لقو قرية بسم الله الرحمن الرحيم لين كور لين قرآنه بسم الله يبقى أنت نقطة لين كنتون نقنية صفحة هي ما كبرت هي طبعا صفحات طبعا صفحات ولا قد دري طبعا قر الآخرية يمسك قر بآخر دار مركز تلعين إنسان وكا وقت جوا كا أشر كيور لم بيدك حمبرتي أشر كيور لم بيدك حمبرتي ولن يروا فرصتان نبي عليه الصلاة والسلام هبين كل العلمية أنبياء بدن باركه نبي دواركه وحكم لها نبي الله إبراهيم فرين بصافري وحلو مضى يقول السلام عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام ما كان قادنا السلام سما وحلو واحد ورنتا أن الجنة قيعان وأن تربتها طيبة وأن غراسها لا حول ولا قوة إلا بالله جنة وامل عرسنا بيا فريسنا تربة دي عيد في عنتهاي وحلقوا بيرا لا حول ولا قوة إلا بالله حديث كوح الشاقي قفك لا حول ولا قوة إلا بالله هذا قيد آيات جنة اللي قبيريه عبد الله بن عمر بن الخطاب والحديث كهي نبأ أيا الله الشيء مالنتي الدنباء وحولي كم ضيعنا من نخلات الله محان جيت تمر ضيعني بولي اللي يمكن هدات بقول قر لا حول ولا قوة إلا تلا إمسي نغنسا بقول جيت كن هدات تلانا بيرتي إن نكون مكويا لنا يا وهكذا مركا دقيقة دايرة فريستي آيات كن جيدي أنت صار وحكسي عجيب سن حديث جويرية ما كان صار جويرية بنت الحارث ابن أبي الضرار المصطلقية وهو يدين ده شكل يمه هو بدين سوچات كي النبي قال هو ينو ما هين نيكو يدي قروا من تقن هين يا نيكو يدي قروا يا هاي نقول عليها قروا هنا جويرية ثلاث واحد كبحضي وورديس واحد قال لي قول عدو ديراتي نبي قال كسر نقضي عليه الصلاة والسلام وحكولي ما هالكي بعد فردها ها أو سيدي بعد ولي ورديس ها أنا قو وحن يري قداشة أفر كلمدود أو واحد ما انتورد الله هيدبا كقالسا ما انتوردن لا بس ساعة غيران بفردي فلا فرتي كلمدود ما انت براينا أفرتي كلمدود سيد ما انتوردن نقول على سو سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته هل مر لنا سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته انت عجيب كاين النبي يقول نوش شيء وسرئه هداد بقول كدك تكورن عجيب هداد دور بقول كدك تمالنتي كورن كسيلا يا بدن وقت با meel lagu gaadha dadka darajada jannada gaadhaya waqtigii bay ka faa'iideeyeen waliba mid kale aan ku daro qofka aan cilmiga badnayn iyo qofka cilmiga leh way kala duwan yihiin kaan cilmiga lahayni mid laga fadli baday buu ku dadaalaya ka cilmiga leh muxuu ku dadaalaya wuxuu ku dadaalaya ka fadliga badan qisa dhacday barigii dagaaladu ka socdeen dalka ayaa diyaarad halkan ku dhacday magaalada dusheeda diyaaradda wixii saaraa waxa kamid ah lacag dadkii meesha tagay waxay isugu jireen meel socota arday waxay isugu jireen reer magaal iyo reer miyigi waxay garanayaan uun lacag Soomaalida qolada reer magaalka waxa ku dhan iska tuurtan waa waraaqe iska tuur dollarka tan qaado iyaguna dollarka qaataan
كي ريرميغا محو قرتي لعق وين او دي كوسكوسن لكن ان markii maqaayada la tago meel la tago wax badanaan kii wax yaqaanina muxuu qaatay door buu qaatay 2 mar 3 mar 4 mar baa ku filan qofka caalimkina waa caynka ka jaahilku wuxuu ku dadaalaya waxaan darajo badan lahayn ay waqtiga kaga dhacay ka caalimkina muxuu garanaya waxyaalaha ajarka badan tabila ajarka uu iska deynaya ajarkeedu yari muxuu ku dadaalaya ta ajarka badan teetan waqti yar oo kooban buu ku dhaafaya kii kale waa halka ilaahay yiri inma yakhsha allaha من عباده العلماء واي انت امرك لغا يمادو ardayay waqtigu kala duwan waqtiga dhalinyaranimadu waqtigana ku jirtaan ama ba ku sii socotaani waa waqtiga ugu qaalisan way maxaa la yiraahdaa zahratul umri ubixi umriga la yiraahdaa muxuu kaga duway waqti kale wax walbaaba waa cusubiin indhahaagu waa cusubiin dhagaagu waa cusubiin jirkaagu waa cusubiin maskaxdaadu waa cusub tahay qalbigaagu waa cusub yahay haye wax walbaaba waa cusayb wixii lagu sheegay hal mar baad qabanaysaa haddaan wax kale isku xumaynin dad macaasi isku kharibin saawgeed alxifdu fi sigar kanaqshi fi lxajar yaraanta haddaad wax ku qaybto weligaa iyo allaha maskaxdaada ka bixi mayso weynaan haddaad wax ku qaybto laakiin haddaad weynaan ku qaybto bayna bayn inay kaa masaxanto iyo inay kuu sugnaato labadaba dhici kartaa marka waqtigaa haysataani waa waqti qaaliya aakhire marka su'aalaha layna weydiiyana 4 su'aalood baa layna weydiinaya laba waqtiga ah qiimaha waqtigu leeyahay halkaa ka garo waxaa nabigeenu yidhi calayhi salaatu wassalaam lan tazaala qadama cabdin yowma alqiyaamati xataa yus'ala can 4 qofka addoonku ma dhaqaaqayaba ilaa 4 shay la weydiiyo 4 shay la weydiinaya waa maxay 4 shay la weydiinaya can cumrihi cumriga isku wada qaad can cumrihi fiima afnaah cumrigiisa ka soo qaad inuu ku dhintay 70 jir 60 jir ku dhintay maxaa la odhanaya 60kii sano maxaad qabsatay maxaad aqoon baratay maxaad cibaado samaysay maxaad gashay maxaad gudday ayaa la weydiinaya maxaa ku xiga wa can shabaabihi fiima ablaah dhallinyaronimadiiba si gaara loo weydiinaya dhallinyarnimada ma cumriga ka mid ahayn mayna cumriga ka mid ahayn haddaba maxaa looga saaray waxaa la yidhaahdaa takhsiisun bacda tacmiim baa la yidhahdaa shayga guud ma la sheegay in gaaraa la sheegaa dadkii waa wada yimaadeen madaxweynihiina waa yimi ya ciddaah muhiimkaba soo qur-aanku ma yidhaahdo tanazzalu almalaa'ikatu waaruuxu sooma la yidhaha arruuxu waayo waa amarku jibriil miyaanu malaa'igta ka mid ahayn laakiin fadligiisa ayaa gaar loogu saaray cumriga dhallinyarnimadu waa cumriga halkii ugu qiimaha badnayd ninka dhallinyarnimada dayacaa muddo dheer buu farta dhexda ka qaniinaa sidaa ogeed inta adoo weyn aad jaahil noqon layd adoo yar dadaal si markaad weynaato wax lagaaga gunto oo wax lagu daba fadhiisto hebel wuxuu ku fiicanyay waxaa bal adoo weyn oo wada ciro ah oo waxba ku fiicnaa waaye ka warran halmees ka noolayduun ma beriis ku madcunaysay haye cadceed way kuu soo baxaysuun waana kuu dhacaysay ila waxa ma hayside marka waqtiga waa ku dadaalaysaan aakhirana jawaabteeda helaysaan ila ninkii dadaalay wuu jawaabaya ilaahay waxaan cimrigii ku qabtay sooma dhallinyarnimadiina saanaan idhi waanii qur-aanka xerta u galay waa tii halkaa laygu xareeyey waanii intaasoo qur-aana soo qaybay waanii haddana ku camal falay wahaakada marka cumriga aakhire waa la isweydiinaya qodobka ka sii daran ee waxaba ka daran waxa weeye cumriga la dayaco aakhiro waa laga muraar dilaaca soo qur-aanka kumaydaan akhriyin waandirhum yowma alxasra somaydaan arag aakhire waxaa loogu bixiyey yowm alxasra mid kasta wuu qoomamoonaya kii naarta gale wuu qoomamoonaya muxuu ku qoomamoonaya ballankeena waa ka baxdeen ballankeena muxuu ahaa in la isla socdo
haye muxuu ka qoomamanaya ka naarta galay dee naartii buu ka qoomamanaya soo ma kii jannada galayna bilowga hore u qoomamanaya muxuu ka qoomamanaya waa laga sarreynaya hayay waxay isu jiraan xiddiga intuu ku jira maaragtay ay isu jiraan kaasi waa tolo waa kuma kaasuma kaasina mid buu sii eegaya hayay ka kalena mid buu sii eegaya marka dambe laakiin waa laga saraya niyaddoodo waxay soo arkayaan ninba inaanay ka sarrayn marka dambe ilaan hadday warwaraan ma raaxaysanayaan waa qacda hore intay warwarayaan nin walba odhanaya haddaan sunnaysan la haddaan dadaal la quraan akhri la haddaan sadaqada badin la kaa waan soo qaban la waay ka kalena muxuu odhan la anna wallaahi kaa kalaan tunka ku soo dhegi la laakiin miyay nooshay ma layna soo celinayaa layna soo celin maayo marka yaan la qoomamoonine maanta waqti la haystaa maanta waqti la haystaa xagga damban ka sheegi doonaa waqtiga sidee baa looga faa'iideynaya laakiin wali qiimihiisa ka warramayna ahmiyadiisa waayo goorma la qorsheeyaa dee marka qiimaha garanayso shayga haddaan qiimihiisaba garanayn iska dayacaysa nin sheekhaa wuxuu doonaya inuu dad wax fahansiiyo deete wuxuu shayga markaad qiimihiisa garanayso ayuunbaad ilaalisaa wuxuu hi nin baa kuu yimi dukaanbaad haysaa bac buu kuu dhiibay wuxuu hi bacda halkaa i dhig maryaad u qaadatay barta yardhow baad iska dhigtay telefoon kuu soo diray maxaad moodaysay bacda hee dukumenti baa igu jiree haa waay sii fogaysay meel muhiimaad soo haddaan kugu soo celiyey dukumentiga maxaad moodaysay dukumenti waa lacag weey ol meel fog baad sii dhigtay lacagta maxaad moodaysay waa dollar iyo euro waad sii durkisay weliba waa intaasoo kunoo milyan waad fadhiisan kari waayeysaa aryaa laygu xadinay habeenkii waad soo boodaysaa kolba toloma la qaatay maxaa keenay inaad saa u ilaaliso maxaa keenay saa u ilaaliso ya macnaheedi baad garatay waktiga markii hore waa iska dayacaysay soo ma taqaanaan qaar ilaa waqtigaan dilayaa waqtigu ma cadowbaa minku caaye maxaad u dilaysaa waayo waktigaas dhaafinaya buu ku leeyahy xaggaas u dhaafinaysaa waa weelkaagii weeye aad wax ku guranaysay ee aakhiro kuu sii horreeya markaa qiimaha waqtiga in la gartaa waa daruuri aad buu muhiim u yahay inaad qiimaha waqtigiisa garataan si kalena xadiisu umu salama nebigu wuxu uhi calayhi الsalaatu wasalaam man sallaa lilaahi 12 rakca fii yowmin bana allaahu lahu beytan fi ljanna maanta ninka hargeysa guri ku leh wuxuu guri baan leeyahay gurigaana dhistayoo lacag buu ku kacaa baloorku iibsanayaa wuu dhisayaa qarash badan baa ka gelaya laakiin isku daro gurigu waa guri hargeysa uun soo ma laakiin ninka guri jannada kule ka warran ka laba kule ka warran bir ramadaan baynu joognaa imse cishaa inoo hadha imika 20 haddaanay 19 noqon soo ma maalin walba 20 maalmood ama 19 maalmood 19 guri baad ka dhisan kartaa jannada 19 guri ayaad ka dhisan kartaa oo seed uga dhisanaysaa maalin walba 12 ragcadood baad tukanaysaa cajiib oo sunno ah oo salaadaha ku gadaaman salaada subax laba ka horeeya hay salaama afar duurka ka horeeya iyo laba ka dambeeya suge 8 laba maqribka ka dambeeya laba cishaay ka dambeeya haddaad maalin walba ilaaliso waa guri waliba gurigaasi cayn ku dhisan yihiin labinatu min fida wa labinatu min dahab ina fi ljannati gurafan yuraa daahiruha min baatiniha wa baatinuha min daahiriha guryaha jannada ku yaalla dushana gudaha laga arkaa gudahana dushaa laga arkaa maasaa yidhi rasuul allah waa sidee yaa leh suu yidhi liman أطعم الطعام وألان الكلام وأدام الصيام وقام في الليل والناس النيام أيورنا مركا وقت يقول لك فائدة يا قيمها سولية أهمية دانا واللي هذا سأد وقت يقول فائدة سو إما كانوا هذا الكيد قالينا سدان وقت يقول هذا وقتها واحد تلاهدا
لا بد أن يكون لك قدوة وإن الله ده عيد الكود يتو وأد كجد يتو إلى أن أنت وقتك قدوة إنه النبي محمد عليه الصلاة والسلام لكن واحد لقيه بارد إنه كفجاته النبي واحد بدن بكما يقانو وبرندونا إن شاء الله لكن إمك قفها تقانو وددال بدن ومعلن كاجا أما تشيران كاجا أما والد كاجا أيها قدوة لقد اكتاب حافظ ديننا وده جوجو صلاة بدن المساجد جوجو صور دريا أيها لقد اكتاب معي قدوة هبل مسوس صقل المساجد كإنت أنا وينان قدوة قدوة ناس ستوا ضروري والنبي جينا عليه الصلاة والسلام أيها قدوة كما رواي أقول لي النبي ده راه قدوة فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده كويل هاي هنوني وكواسه كديو وكا مركز ديشوا ضبع أنتي ديشوا النبي جينا عليه الصلاة والسلام كوي النبي كده يدبن كوسي دين كرنا اللي هو سليمان يساونه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ديشوا ضبع أنتي كو معاك لا ضبع أنتي واحد ضبع أنتي منافس كان لا ترتمي لا ضبع أنتي أردنا تغني ما أنت كل حريصا كوجود ذلك بدن أيال هذا كاوين كبديا تقول هنقولين كوجود هذا لا ترتنتو يا نكداوان دريا ها ما درسا ها ودين كان كدريا سلوكو قسم مايو نكدين كلا ترتمي ملوكو قسم سلوكو قسم مايو لكن كيد فرس كان لا ترتما نكاسات لو قريا سما هذا تراك كلاس كوجود لا ترتميا تحمد فلين waxaa la tartamaysaa ka ugu fiican xagga waqtiga ilaalintiisa ee ugu quraanka badan baad leedahay horta miyaanu 9 bilood ku dhalan miyaanu nin anigoo kala ahayn waa inaan marka imtixaanka la idinka qaado kan wanka galaad leedahay anna waa inaan ka qaadaa waa inaad heshaa mid aad ku dayato kula tartanto saxaabadii meel gaadhay way tartami jireen siirada akhriya Umar ibn Khattab wuxuu la tartami jiray Abu Bakar maalin walba islaamaanta daafid سيبك سوتشري واي ما أنتي دمبه أو صدقات اللي بحنا أقول والله ما أنت حولي يسوق هاتوسي لعك في عمد هيسا ما أنت أبو بكر كده حولي يسيب كل نقضي وكلا بري جبي جودي بقى كلا برد بوكانه أبو بكر بقى ماشي يمي لكن سجل ويدي عمره حولا أنت بحسي رسول الله وان كلا بري وكلا برنا ولا عليه كلا برنا ما بحيه أبو بكر وادوكنا جبي جودي بقى كانه حبض بكمان هارين ومالته عمر سديبي يقول ما عنده بكرة ترتمي معي هدان ما أنت بكاب بدين واي هه ما عنده كاب بدين وحيو ترتمي شري فقراء ذا يا أغنياء ذا نبي قلت تجين قال دي سوال كايد وحبه يسني ذهب أهل الدثور بالأجور والنعيم المقيم يا رسول الله رسولك إله يو أترك وانا لو قدري يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويجاهدون ولا نجاهد صونك وكسبني صلاة دي والعقوة ما بهنا يجون لكن وحيل عقته وبهنا صدقات دي حج كي جهاد كيو وين قدري نبي يربو قنتو حوري أنا إذا برا شيء عيد والبك قد أرين صار لكن عيد بيدا قد أرين كرين وايو عيد أنت سميسا رسول الله نوشك صلاة ولا لقبحه تسبحون الله 33 وتحمدون الله 33 وتكبرون الله 33 وتقولون تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير فقولك بأن الله صعر رابين ويبلابين قولوا ذا أغنياء ذا حولك الإلهي موصينين كرشان وسيد دال ويسوه قادين الله وانما بريان بوح بيسلق قابينين وحنا يسلق قابينين هلو قادوا ويسوه قادين ويسميين وحصو قولوا ذا صنع رسول الله تأنتي ردوا إلي مادين أنا قلب الوحك له نبي ذلك فضل الله يؤتي من يشاء والله ذو الفضل العظيم تهاتين تيلا يدلقرتين مو حنقول حصميننا ما أفكي أي بيكوه تاني يقول ما يا ساسو ترتمي أنت سوك اليوم ما مروح حيو ترتمي أنصار رحديت بقى ترتمي سي أنصارته أو سي خسرج وحكوه الرئي خسرج واحد هذين منا 4 أكمل القرآن أفر نبان لنا قرآن كملي بقى ترتق وين الشرك قلين وين حمانته قلين تذكر مركب حمادان حيكون ترتوان حمانته الدنيا ده ألهاكم بالتكاثر حتى زرتم المقابر وتكاثر في الأولاد
oo takaasuru fil amwaali wal awlaad marka Soomaaliya qaar baa la sheegay say u tartamayeen qabiil qabiil ilaa annaga beenaalayaasha ma taqaanaa imsa beenaalaal leena say wax walba ugu tartamayeen ilaa beenaalayaashii subxaanallah wax lagu tartamaaba kaasoo kale la wasiyaabay hayd ma beenaalaad ku tartamaysaa wada qaadaba inteedana ku darso hadduu wax ku goynay marka waxa ka xumaatay tartanka wax wanaagsan baa lagu tartamaa qodobka ila dheeraad waxa weeye qof kula tartama samayso alla tartanto waayo awood badan baad heliyo heer baad gaari qodobka saddexaad waxa weeye ee aadka u muhiimka ah dadka waqtigooda ilaaliyay la tasho kuwa ragga waqtigooda ilaaliyay tala ka qaado waxa tira say waqtiga u maareeya iyaga tala ku siinaya saayeel oo garatay soma qodobka ku sii xiga waxa weeye waqtiyada iskuma jiraan waqti oo dhan ilaali waqtiyada fadliga badanna si gaar ah u ilaali hadday wax ka dayacmayaan ha ka dayacmaan maxaan idin hadday wax dayacna kuween dayacna kuwa fadligooda hooseeyeen dayacayna hadday wax dayacayna wey laakiin kuwa laba taabtaana jira ramadaan oo kale ma wax la dayici karaa tobanka daba ka warrama ka sii cajiibsan leylatul qadri ka warran habeenka haddaad seexata ka warran iska khuriso hurdadu meel kaa tegi mayso way meelaa taagtaagantay subaxa waad seexan doontaa ma fogaanayso u soo jeed shawaalka ha dayicin tobanka dilxija ha dayicin yowmu caashuuraa ha dayicin maalin kastoo jimce saacatulijaaba waa salaada casar ilaa maqrib iyo kaa lumin inta kale haddaad doonto iska cayaar laakiin casar ilaa maqrib bartaa fadhiiso qur-aankaaga iyo wardigaaga iyo ducadaada waa waqti qaaliya waqtiyada qaaliga waxaa ka mid ah bacda subaxan dadku ay hurdada ku yaacaan sax maaha hurdada habeenkii ka bogo baaqi hadduu ku hadhina maalintii seexo laakiin xilligaa subaxu waa xilli cajiiba weeye qalbigaaga iyo waqtigaaga iyo waxoo dhan waa fresh waa xilliga qur-aanka iyo cilmiga la daalacday wixii la qaybaya la qaybo marka ardayay waqtiyada fadliga badanna si gaar ah loo ogaado waxaan doonayaa qodobka shanaad ee ugu dambeeya rag waaweyn baa idinku jiro dee idinku dhibi barraa weynaanaysaane iqra'uu siyara asalaf ridwaanullaahi calayhim waxa akhridaan siiradii salafka siday waqtiga ku ahaayeen akhriya muxadisiintii akhriya quraadii akhriya fuqahadii akhriya oo idin yaabi siday waqtiga ku ahaayeen habeen keliya ayaa nin baa wuxuu ka warramayaa bukhaari ay gurigooda seexdeen bukhaari markii uu sidaa dhinaca u dhigay ayaa uu gam'ay oo ilaa waa beriguu jiifay haddii lagu idhaa waad yaabaysaa maalkaas bukhaari maaha waayo dee bukhaari muu noqdeen hadduu saa u jiifo muxuu iska ahaan lahaa qof caadiyo hurdo weyn wuxuu idhi 7 jeer buu kacay oo mar walba faynuuska shiday oo xadiis qoray soo yar seexdaa suu ku soo dhacaa ilama gamayabe wuu kaca wuu shidaa soo haddana qoraa haddana uu dhinacu dhigaa haddana way ku soo dhacdaa uu kaca 7 jeer ninka kacay intee buu seexday waxbaba marka akhriya siyar salaf waxaa gaari jireen heer ninka sheekhaa lagu yidhaahdo tawaqaf lii qaliilan in yar ii taagnow markaasuu yidhaha awqif ishamsa adnuu cadceedda jooji waaye aan ku istaage adna cadceedda jooji cadceedda ma la joojin karaa ya cadceedda lama joojin karo dee anna kuma joogsan karo weeyaan marka ardayay waxaynu u baahan nahay inaad aad iyo aad wax u akhridaan macallimiintiinana ka dhegaysataan waqtigiinnana ay ilaalisaan shan baynu ku wadnay waxaa ugu dambeeyan ku gebagabaynayaa waqtigu imisuu qaybsamaa waqtigu wuxuu u qaybsamaa elbiriqsiyo iyo daqiiqado iyo saacado iyo maalmo iyo usbuucyo iyo bilo iyo sanado hadday elbiriqsiyadu kaa qaldamaan waxay jiidanayaan minidyadu hadday dayacmaanna maxay jiidanayaan saacadaay jiidanayaan saacado hadday baaba'aanna maalmay jiidanayaan maalmihiina usbuuciyay saasay isu jiitaan ka ugu yar ilaasho ilbiriqsi waa ha oggolaani hade mar walba ilbiriqsi wax walbaan qaban karaya haa seed u qaban kartaa
أدونك وحوية علماء وحيوق بيا شن أحكامته واحد دون كتير أول شنطة الأحكام الخمسة ليلة لبوا منهيات لبوا نوا مأمورات من نوا مباح منهيات قال كأنه قديم وحرام يا مكروه كوا كفجون كفجان عبادة والله قوة ترسينية حرانتي جدا بنتي جدا حنتي جدا روحني جدا بيجي روح كل بتاع حتى مكروه كم ده أنا جدا يومي تنقولي صح أشربت كويسة مساجكو بيجي هذا لقوا قالوا أيام مكروهة ميدينا لك الصباحه سوري قالوا كلا الرجو وهكذا مكروهات كي سيلان تيدا أشربت كويلي وقت كيف يسوي حرام تسكيل على الصو أشربت كويلي صلوا بيجا ما يسان واجبات كي سنن كأول جود دالو ينوا وأشر ده فرفري وقرن سان حصاري مباحات كي محاكم إذا عبيتانك عندا هيه مباحاتك وعنتدا عبيتانك سيحشدا أي وحي لميدا لغينتا سيدا ود وحانا نية في عمل لون نيودا سيأتشرو نغضان عنتدا مركز عنيسو نيود سدح نيود نيون كرتا حلاشي إلهي بان عنيا كو صمد ما وحرام مسكيل علينا كو وأمر لبات كالطيبات كيبان كرة حيسانا يا نمعوين كي ليلي كلوا من طيبات ما رزقناكم طاعدا نقوق ويسانيا سدح نية سراعين كرتا سدح نعمة من نفسك قدل دليا ما قد ديواتي بسم الله الرحمن الرحيم هذا بسم الله هو اللي قرية به لكن دي نيدي لما قرية مركب مباحات كان أبدلا معاذ بن المحوري إني لا أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي صلاة الليل كسيدا نو حساب سنة أيان هردد نو حساب سنة يا محايا لي هردد نو نيودي مركب أنتي صلاة اللي قري هردد نو اللي قرية نيك اللي ساعات تضوى ساعات ساعدي تضوى ولا قرية وقتها كده يعمل ما يا كلكين تابا خورون يسك وكذا يعني مركار دياي بالله بينو كلا قادنا إن شاء الله بالله كانوا وامحي كرو كرو واقع بالله كانوا وامحي وقت قال لا إله إلا ما شاء الله إلهي هيدكو بركة إلهي هيدني العليو إلهي قلبي جين الدين تهجليو إلهي دمانت هنا بركة قلبي جين إلهي دين توفره أعماشنا أعمال صالحة الله كديو رمضان بين شونا إلهي رمضان تاينا قابله دم بيجيني كوالد كم بالله كداف أشر كنا الله بديو أدونك يا آخرة الله نو إلهي أدونك يا آخرة الله نو إلهي إلهي وانا قلنا بين ويدي سنة وانا عين السيو حمان ودنا الله نقفه سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين.